السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحة يا عافيمات تامية نولل وناكسن أيان إذين رجينيا Soomaalidu xilligii hore mararka qaar xanuuno ayay faan ka dhigan jireen dhibaatooyin waaweyn oo ceeb ah ayay ka dhigan jireen amaan waxa ka mid ahaa xanuunada ay faanka ka dhigan jireen marxaladan imika aynu ka sheekaynayno ee la yiraahdo allagrima waa marxalad muuqaalka aynu kaga hadli doono oo xanuuna indhanaana sababta laakiin Soomaalidii hore ay faan ka dhigan jireen kuwa hadda joogaana faan ay ka dhigtaan ragga waxa u badnaata xaaladan iyo waxaad ka arkaysaa gabayada Soomaalideennii hore inay xanuuno iyo aafooyin waaweyn oo qofku haddii uu yeesho ceeb ku ah inay ammaan ka dhigan jireen tusaale ahaan ninku haddii aanu libiqsiga aqoonin ama indhihiisu haddii aanay marna soo ururin marna kala bixin oo sida ay u taagtaagan yihiin waa xanuun ilini haddii aanay ka iman waa xanuun laakiin Soomaalidu raggu inaanay libiqsan ilina aanay ka iman ammaan bay ka dhigan jireen oo abwaankii waa kii lahaa aanan libiqsanayn oo ilin gooyay baan ahay dilaa laga fogaaday oo caariyaystay baan ahay gabaygoodaad ka arkaysaa sida markaas ay inaanay libiqsan ilina aanay ka iman ay markaa iskugu ammaanayeen ama markaas ay ugu faantamayeen marxaladan maanta aynu ka hadlayno ee allagrima waa qofka oo ilini ay ka iman weydo marka ay musiibooyin ku dhacaan marka uu emotion dareemo marka uu naxdin dareemo markuu dhibaato dareemo marka murugo dareemo oo haddana wax ilini aanay ka imanaynba xataa dumarku iyagoo qaylinaya rag iyo dumarba way ku dhici kartaa tani oo dhibaata ay ku timi oo jirkooda dhibaata ay daabatay oo xataa afkii uu qaylinayo ayaanay indhihii ilini ka imanayn ama qofkii si caadi aanay ilintiiba uga imanaynin marka uu murugoodo marka uu farxo marka uu siraahdo ilinta iska keen wax iliniba ka iman mayso bal marxaladda noocaas imika adoo halkaaga fadhiya tijaabi oo indhaha isku qabo ama waxa samaysaa inaad isha isku qabato ama ilbiriqsi aad samayso inaad markaas ishaada ama aad iska qiiraysiiso bal inay wuxuun ilini uun isha ku soo dhici karto haddaba haddii waxaa soo maraaxil aanay ilini kaaga imanayn mid adigu si kasta aad u samaynayso mid marxaladii ay kugu keentay warwar dhibaato iyo wax ku taabtay murugo ku taabatay dhibaato ku taabtay mashkilada kugu yimi murugo iyo geeriyo dhacay waxba aanay ilin kaa keenayn oo indhaha waa iska soo taagan yihiin xaaladda noocan baad ku jirtaa indhahaagu waxay ku jiraan very severe dryness marxalad aad u qalalan ayay ku jiraan xaaladan inta badan waxaa lagu tilmaamaa inay tahay lagrimal glandiska oo dhibaata ku dhacday qashidhada ilinta soo daaya oo ay dhibaata ka jirto physically iyo psychologically labadaba dhibaatadani way kaaga iman kartaa waxaa loo baahan yahay haddii wax ilinaba aad iska weydo marxalad kasta ilini ay kaaga iman weydo inaad dhakhtarkaad u tagto arrintani waxay kugu keeni kartaa ilin la-aanta oo hin aad cabaadaysa maaha ilini ishaada hadday dhinacba ugu soo dhici weydo oo aad sii eegato waxay kugu keeni kartaa marka dambe indhala-aan labada indhoodba inay dam ku noqdaan haddaba si xaaladan looga hortago oo lagrimal glandiskaaga iyo qanjidhada ilinta soo daaya dhibaatadu xagay ka jirta la eego oo dawooyinkii iyo xal bay leedahay lagaa daweeyo waa inaad adigu marka hore istijaabin kartaa ishaada ilinima ku soo dhacaysa oo ishaadu ilin ma leedahay mise iliniba ma jirto hadday iliniba aanay jirin maraaxilba haddii aanay ilini ka jirin is-adkaynta iyo nin baan ahay ninka inay ilini ka timaado waa ceeb iyo waxaa intaad ka baxdo dhakhtar u tag si lagu baaro oo ishaada loo ogaado sababta ilinta ay u iman laaday mana aha xaaladani xaalad ninku uu faan ka dhigan karo waa xaalad caafimaad waa medical condition waa arrin u baahan treatment waa arrin u baahan diagnosis iyo baadhis waa arrin u baahan counseling iyo la talin waa arrin kaa doonaysa inaad markaasaad fadhiga ka kacdo is adkayn iyo ignore garayn aad ignore garaynayso iyo
بلاي aad iska dhigaysiin libaxti xaaladaasi kaftan ma gashay dhakhtaru tago. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.